السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal maalin wanaagsan maanta waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo xisaab loo isticmaalo si loo soo saaro da'daada ama da'da qof kale. Waxaan ku tusayaa shay oo practical ah. Waxaad qabsanaysaa ama soo qaadanaysaa calculator-kaaga. Calculator-ka markaan galno, tallaabada koowaad aad qaadayso waxaa weeye waxaad qabsanaysaa number u dhexeeya 1 ilaa 10. Aniga waxaan qabsanayaa number 4. Tallaabada labaad waxaa weeye waxaad ku dhufanaysaa numberka aad qabsatay, numberka aad dooratay waxaad ku dhufanaysaa 2. tirada kuu soo baxday ayaa waxaad ku daraysaa number 5. tirada kuu soo baxday oo 13 aan ii soo baxday, adigana tirada kuu soo bixi doonto waxaad ku dhufanaysaa 50. markaad taagantahay halkaasi waxaad ku daraysaa 1768. markaad ku darto tirada kuu soo baxday, aniga waxaa ii soo baxay 2418. adigana tirada kuu soo baxday ayaad waxaad ka jiraysaa sanadka aad dhalatay ayaad ka jiraysaa. aniga waxaan dhashay 1998. waxaa ii soo baxay 420. number 4 ama number 4 waxaa waaye numberka aan doortay. tirada 20 waa da'da aan hadda jiro. adigana waad samayn kartaa oo waad tijaabin kartaa wadadan adoo isticmaalaya. waxaan ku rajaynayaa guul. hada wallahu aclam. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. siina sheer garee si ay ugu faa'iidaystaan walaalaha kale. waa xisaab aad u muhiimsan. ka faa'iidaysi wacan insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.